kaasi dowladda taageersan in madaafiic ay soo tuurayaan si ay daadguraynta u joojiyaan. madaxweynaha waddanka ruushka ayaa waxa uu ka hadlay wararkii ugu dambeeyey ee magaalada xalab. wejiga xiga waxa uu yahay gaaritaanka heshiis xabajoojin buuxda oo ka dhacda dalka suuriya oo dhan. wadahadallo xoog leh ayaan kula jirnaa wakiillo mucaaradka hubaysan oo sidoo kale uu Turkigu dhexdhexaadiye ka yahay. kremlinka ruushka looga taliyo ayaa si carale uga jawaabay aqalka cad sheegasho ay sheegeen oo ay ku eedeeyeen in weerar xagga internetka ah xilligii uu socday doorashada madaxtinimada ee waddanka Maraykanku ay ruushku ka dambeeyeen. afhayeenka rasmiga ah ee madaxweyne Putin oo lagu magacaabo Dmitry Peskov ayaa waxa uu sheegay inay ceeb ku noqonayso maamulka Obama haddii aanay keenin wax caddayn ah. madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in Mr. Putin uu shakhsiyan ku lug lahaa jabsashada, waxaana uu wacad ku maray in ay ka jawaabi doonaan arrintaasi. ma sheegin in jabsashada internetka ee ruushka lagu eedaynayo ay caawisay madaxweynaha la doortay Donald Trump iyo in kale, laakiinse waxa uu sheegay inay dhibaato weyn ay ku abuurtay Hillary Clinton oo ahayd musharaxii tartanka kula jiray. qaramada midoobay ayaa si adag u dhaleecaysay dowladda Myanmar ee ay hogaamiso Aung San Suu Kyi sida ay ula dhaqantay dadka laga tiro badan yahay ee Rohingya loo yaqaano. xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda ayaa waxa uu sheegay inay helayaan warbixin maalinle ah oo ku saabsan dilal, kufsi iyo xadgudubyo kale. madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Sayid Raad Al Xuseen ayaa waxa uu sheegay xiriir lala sameeyey dowladda Myanmar in aanu midho dhalin. ugu yaraan 76 ayaa la dilay, tiro ka badan 27,000 oo muslimiinta Rohingya loo yaqaanana waxaa lagu qasbay inay ka cararaan howlgalka militari ee ka soconaya gobolka Rakhine ee Myanmar. kumanaan kun oo ah taageerayaasha xisbiga talada haya ee waddanka Zimbabwe ayaa isugu soo baxay magaalada Masvingo ee ku taala koonfur galbeed ee waddankaasi Zimbabwe. shirweyne sanadla oo xisbigaasi uu yeelanayo. dagaalka siyaasadeed iyo burburka dhaqaalaha ayaa laga yaabaa inay harayso shirkaasi oo ay ku baxayso qarash dhan $5 milyan oo dollarka Maraykanka. wariye ka tirsan BBC-da ku sugan Zimbabwe ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga uu damac uga jiro kursiga madaxweyne Mugabe oo 92 jirsaday. maalinta Arbacada ayuu madaxweyne Mugabe waxa uu cambaareeyay damaca waalida ah ee siyaasiyiinta qaarkood. shirka ayaa waxaa la filayaa in uu taageero in Mr. Mugabe uu u magacaabo inuu noqdo musharaxa doorashada ee sanadka 2018. ugu dambeyntiina arrin bahdil weyn ku ah duqa magaalada Roma ee ka tirsan xisbiga shacabka ayaa madaxeeda shaqaalaha la xiray kadib markii lagu soo eedeeyay musuqmaasuq. Rafael Amara ayaa u noqotay ku-xigeen muhiim ah Virginia Raggi oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa 5 xidigood ee 5 starka loo yaqaano oo loo doortay duqa caasimadda bishii Juun. maadaama ay ahayd qofkii ugu sarreeyay ee la doorto oo ka tirsan dhaqdhaqaaqaasi 5 star, waxa ay ballan qaaday in ay sifayn doonto musuqmaasuqa hareeyay dowladda hoose ee magaalada Roma. horay ayaa duqa magaalada Milano oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Talyaaniga shaqo fariisin lagu sameeyey kadib markii lagu ogaaday in baaritaan dhinaca musuqmaasuqa ku socdo. Axmed mahadsanid saalimiin. halkaas aad nagala socotaan waa BBC London. u diyaar garooba barnaamijka dooda ee galabta. barnaamijkeena doodu galabta waxa uu ku saabsan yahay doorashada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo heer gabagaba maraysa. waxaan eegi doonaa howlaha horyaal baarlamaanka cusub iyo sida uu waajibaadkiisa u gudan karo, muxuuse kaga duwan yahay baarlamaanadii ka horreeyey. dooda waxaa ka qaybgelaya aqoon-yahano ay ka mid yihiin Dr. Maxamed Cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda Metropolitan ee magaalada London, Dr. Afyare Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda dalka Qatar, xildhibaan Cabdifataax Caaqil Yare oo ka mid ah xildhibaanada cusub. ra'yiga dadweynuhuna qayb weyn ayuu ka yahay barnaamijkan. waa tahay waxaan
sayid cali abukar oo isaguna ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa oo dhinaca doorashada isaguna maamulkeeda ku lug leh ayaa barnaamijka ka qayb gelaya waxaanse ku bilaabayaa halka ay xaaladdu marayso bal horta waa kan cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir. haddaba waxaa ugu dambaysay dibudhicitaannadaasi iyada oo shalay toole loo ballansanaa in la dhaariyo xubnaha cusub ee baarlamaanka ayaa taasi dib u dhacday. waxaa maanta magaalada muqdisho wararka ugu dambeeyey ka soo baxaya ay sheegayaan in loo ballansan yahay kulan dhex mara madasha madaxda qaranka soomaalida oo ka kooban maamul goboleedyada iyo madaxda sarsare ee dowladda federaalk ee soomaaliya. waxaana laisla eegi doonaaba la leeyahay bal halka ay marayaan doorashooyinku iyo caqabadaha hortaagan sidii looga hor qaadi lahaa. waxaa kaloo iyadana lagu jiraa qabanqaabada sidii loo dhaarin lahaa xubnaha cusub ee aqalka baarlamaanka ee soomaaliya. war uu soo saaray goordhowe toole xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya michael keaton waxa uu sheegay inuu kulan la yeeshay guddida xalinta khilaafyada. waxaana uu sheegay in guddidaasi uu ka codsaday in waxoodu ay noqdaan wax cad oo aan muhamal ku jirin oo ay ka hadlaan sida xildhibaanada qaar loo reebay qaarna aan loo reebin, iyadoo buu yidhi haddii lagu dari waayo xubnaha laysku haysto ee laga shakisan yahay loo arkayo guddidaasi waxa ay qabanaysaa in aanay ahayn wax sax ah oo cadaalada. waxaana uu ku baaqay in guddidu iyo madasha qarankuba ay xal u raadiyaan arrimahan ugu dambeeyey. waxaa kale oo uu michael keating oo hoosta ka xariiqay in qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay buu yidhi wakhti badan iyo maal badan iyo juhdi badanba geliyeen doorashooyinka soomaaliya sida ay ku qabsoomi lahayn, isaga oo sheegay in wax badan iminka lasoo qabtay oo loo baahanyay buuhi in la sheego in guddiyada iyagu hawsha wadaana ay hawl badan arrinkaasi geliyeen. doorashooyinka soomaaliya dib u dhacaya ayaa haddaba waxaa ku xeeran dagaalada ay ku jiraan al-shabaab oo ay ugu dambeeyeen weeraradii shalay toole ka dhacay magaalada muqdisho oo ay 2 weerar ku qaadeen iyo magaalada boosaaso oo ay ku dileen taliya ku-xigeenkii 3aad ee ciidamada puntland ee booliska. waxaa kaloo iyaguna jira dagaalada ka dhexeeya maamul goboleedyada soomaalida iyo colaadaha maamul goboleedyada dhexdooda ka taagan ee ku salaysan qabaa'ilka iyo welibana hardanka loogu hardamayo meelaha lagu shirayey sida loo dooranayo xubno baarlamaanka ah. dad badan ayaa isweydiinaya in nidaamkan federaalku uu soomaaliya u shaqayn doono mustaqbalka, iyadoo aynu ognahay in khilaafyo badani ay soo dhex galaan mar walba ra'iisul wasaaraha mar walba madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa dad badan waxay ka fikirayaan sida loo xallin karayo 2 aqal oo baarlamaan iyo maamul goboleedyo iyaguna mid waliba dhul inta badan laga yaabo in muran ka taagan yahay. aad ayuu u mahadsan yahay cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir oo inala socodsiinayey bal halka xaaladdu ay marayso iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey. waa tahay waxaan ku bilaabayaa doctor afyare cilmi oo qadka magaalada qatar dalka qatar ee uga jira. doctor waa mahadsan tahay waqtigaa siisay barnaamijkan kasoo qaybgalkiisa. haddii aad dhegaysatay halka wax marayaan maxaa kaaga baxay? runtii waa mahadsan tahay adiguna. waa arrin kolley waktigeedii taagan yahay. hadda wax oo weyn oo isbedelay ma jiraan. meeshan dadkii asalka sameeyey waxay ahaayeen madashiina hadda ha isku timaadaa la yidhi oo ha xalliso. waxa marka guddiyadan ay madashu samaysay laftirkoodu iyo madashii go'aamada ay gobolladii markay tageen ay kusoo qaateen ee isdiidanna waxaan u malaynaa habka oon kolley ugu dhow ay ku xallin doonaan inuu yahay inay markay isku yimaadaan hab siyaasiya oo xal mastuura ay wax ku xallistaan. waa nuxurka meesha yaallaa waxa waaye waa niman murashaxiin wada ah ama dad taageersan oo ayagu keensaday dadkii ay soo xusheen meesha keensaday oo marka ayagaa isku haysta oo isku qaqabsanaya. shacabka soomaaliyeed waxaan banaanku ka taaganya cidna waxba kama ay weydiin. cid kale oo hadda oo stakeholderskiiba wuxuu ku soo aruuray waxaan loo baxshay oo wax ka dhexeeyaan dhowrkaa qof hadda la yidhi ayagaa madasha ah iyo guddiyada ee ayagu samaysteen. ayagaa marka wax kala riixriixanaya oo sadbursiya iyo wax kala sadbursanaya. intaas waaye nuxurku. ayagu markay isku yimaadaan oo bresharka caalamka u yimaadaan waxaan isleeyahay inay wax intay kala bedeshaan akhirka meesha xildhibaano
oo ay ka soo baxaan oo la yidhaahdo baarlamaanaa jira anu kulley intaasaan ka fili karaa hadda waxa meesha ka socda. waayahay dhinaca kale laakiin marka la fiiriyo tirada dadka xulashada ama doorashada sidii la doono dadban ha la yidhaahdee tirada dadka ka qayb galay wax soo xulayay marka la fiiriyo dalka gudihiisa in lagu qabtay doorashadii marka la eego intaasoo dhan marka la isu geeyo sow wax fiican kuma jiraan meesha. markaad si hoose usii fiiriso waxaad arkaysaa horta inta badan ee kuraasta wareegga labaad la isla gaaray oo tartan rasmiya oo ka dhaxay horta ma badna. midda labaad waxaad kaloo arkaysaa kuraasta 30 xildhibaan wax ka yar lagu kala adkaaday iyaguna ma badna. yacni tableka waa ta publica taalla oo ma aha wax oo marka waxaad arkaysaa 51 baa lagu soo doortay waa madaxweynashii 99.9 ay soo dooran jirtay. marka inaan horta meesha tirada dadka soo korortay wax badan soo kordhin way muuqataa. nuxurka iyo processkuna kii hadda 12 inuu ka musuq maasuq badan yahay mooyaane kama musuq maasuq yara. marka aniga shakhsiyan hadda ma islihi wadada wax ku yimaadeen ayaa lagu kalsoonaa karaa oo xalaali ka dhalan kartaa. kolley meesha uma fadhiyo aniga in badan oo dadka aan afkaarta iyo xogta wadaagno oo Soomaalida ama aan ka warhaayana meesha uma fadhiyaan. waxa uun taala ruuxii doonaaba ha dhacaane mar uun hadiiba hadda baarlamaan la keeno waxaa laga yaabaa yani wuxuun rajo ah ma ka dhalan karaan oo ah in baarlamaankaasi uu institution hab ah u shaqeeyo oo nolol asaga life of its own wax intuu samaysto oo institution danihiisa iyo danaha markaas oo shaqada loogu talagalay qaban kara yahay ma noqon karaa. oo jawaabtu laga yaabo inay ay runtii marka taariikhdii hore lasoo fiiriyo aysan fiicnayn haddana waxaan aan horay u soconno ayaa asalka ka tahay maahane processkaasi waxna waan ka qoray waxna horeyna waa uga hadlay u malayn maayo processkaasaa xalaal ahaa ama sax ahaa ama maaragtay maslaxa ama mabaadi anu kolley cid hadda difaaci karta ma aan arag. laakiin intaasoo magaalo in lagu qabto xulashadii ama doorashadii dadbaneed muqdisho ka bilaaw garowe baydhabo kismaayo intaasoo meelood in lagu qabto sow wax ma ahan qudheedu. wallaahi horta dee intaasoo meelood in lagu qabto dhaqaale maxaan ku idhaahdaa dhaqaale awal la dhihi jiray magaalada muqdisho musuq maasuqa keliya geli jiray in musuq maasuqyadaas laftirkeeda loo outsource gareeyo oo meelaha kaleetana lacaga ay gacmaha bedelaan ayaga laftirkooda iyo yani waxyaalo yar yar oo saasoo kale ah oo dadku ay sheegayaan waa jiraan. laakiin markaad ayadana taa u fiiriso lacagaha isbedelaya la isticmaalayo iyo abaarta dalka ka jirta iyo waxa socda yani processka meesha ka dhacay ma aha process waxa moogtahay markii processka xalaalnimadu ka dhalataa waayahay si fiican wakiil noqon kara ma aha. intaasaan aniga rabaa inaan ku koobo waxa kaleeto waa isaga iman doonaa. waayahay iigu jir qadka afyare waa kugu soo noqonaya waxaan la hadlayaa markaan dadka arrimahan ku howlan qaar ka mida sayid cali abuukar waxa uu ka tirsan yahay maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. waad mahadsan tahay waqtigaada barnaamijkan aad ugu tala gashay kuna soo dhawow. maxaa kaaga baxay hadalka Dr. Afyare? axmed waa mahadsan tahay. horta waxaan rabaa inaan tacriifta kuu saxo. aniga waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka koonfur galbeed shaqaale koonfur galbeed ma ahi maamulka ma tirsani. taas waxaa rabaa horta inaan saas iyo dhegeystayaasha ogaataan. waa mahadsan tahay. midda labaadna waan idinkaga mahadcelinaya waan salaamayaa akhyaarta qiimaha badan oo ku jirta barnaamijka barsoorada dad badan oon qiimeyno ayaa meesha ku jiro waana ku mahadsan yihiin inay maanta dooda nagala qayb qaadanayaan. midda kalena waxaan jeclaan lahaa waqti ku filan waa siisay barsoorka annagana inaad waqti ku filan na siiso intaan hadlayna hadalkale naga jarin. aada waa mahadsan tahay. markaan fiirino kelimadihii barsoorka u jeediyey uu ka hadlay doorashadii dhacday iyo meelihii doorashada ka dhacday iyo uu dhahayo waxba sooma kordhina wax isbedel ah ma keenin. dabcan waxaan rabnaa inaan dib u fiirino oo muhiim tahay inaan ogaano
doorashadii dhacday sanadkii 2012 waxaa ka qayb qaatay 135 oday dhaqameed ayna joogeen magaalada muqdisho hal xarun ama hal goob ay isla joogeen processkoo dhan intaas ayuu ku koobnaa laakiin doorashadan dadban ee sanadkan 2016 waxay ka dhacday 6 deegaan doorasho ama 6 goobood oo kala gedisan oo dadka wax kusoo dooranayeen waxaa ka qayb qaadatay ergey ama ergo gaaraysa 14,025 qofood oo marka loo fiiriyo iskoob ahaan aad uga duwan doorashadii dhacday sanadkii 2012 iyo marka loo fiiriyo deegaan doorashooyinka dabcan waxyaabihii soo baxay ama waxyaabahaan aragnay waxaa kamid ahayd inay deegaan doorashadu ay tahay in qofka xilka doonaya uu ogaanayo waxa constituency-ga afka qaraar lagu yidhaahdo ama dadka uu matalayo meesha ay joogaan inay codkooda ku siiyaan inay aada muhiim u tahay in qofku ergada ehelkiisa ama dadka deegaankiisa inuu u tago uu og yahay inuu codka ayaga ka helayo uusan ka helayn oday dhaqameedkii keliya halkii sanadkii 2012 ay ahayd markaa fiiriso yani soomaaliya doorasho 60 sano kale lagu qiyaasay in wadankaysan doorasho ka dhicin waxaan isleeyahay waa horumar aada u weyn oo aada u ballaaran oo laga gaaray inay dadka si dimuqraadiyad ah oo xor ah oo xalaal ah codkooda qofkay rabaan inay siiyaan dabcan professorku wuxuu soo hadal qaaday in wareega lacagaha oo kaleeto aada iyo soo carabka ku dhuftay dabcan marka doorasho laga hadlayo dabcan waxaa jiro waxaan ololaha doorashooyinka ama campaignka loo yaqaano meel kastaba adduunyada yurub markaa fiiriso america markaa fiiriso lacago malaayiin oo dollar ayaa lagu bixiyaa campaignka wax oo soomaaliya keliya ku kooban ma ahan laakiin si sharcigay ku baxaan si laaluush kala qaadasho iyo wax kala iibsasho kuma baxaan nidaam sharci oo laisla og yahay ayay ku baxaan soo ma waa mahadsan tahay axmed dabcan qofka inuu dadka meeshii ay degan yihiin qoyskiisii ama familkiisii ama jifadiisii ama qabiilkiisii inuu u tago dadkii inuu abaabulo isu keeno xaflado u sameeyo qadooyin u sameeyo oo ula hadlo ka dhaadhiciyo mashaariicdiisii uu samayn lahaa iyo waxyaabaha siyaasad ahaan ula hor imaan lahaa waxyaabaha uu doonaya inuu kaga duwanaado musharaxiinta kaleeto dabcan waxaan aragnay kuraas 7 qof oo 8 qofood ay ku tartamayaan oo mid kamid a codka uu helayo inta ugu badan oo ah 50+1 ama 50+1 waxaan loo yaqaano inay dadku ku guuleysanayaan marka intaasoo dhan waxaan dareemayna inay tahay waxyaabo aada horumar u ah dadkii kasoo shaqeeyay hanaankan ama processkan kasoo shaqeeyey hadday tahay gudyadii heer dowlad goboleed hadday tahay gudyadii heer federaal intaba waxaan isleeyahay waxay soo kordhiyeen ama waxay kusoo biiriyeen processkan ama soomaaliyada isaga soomaalida ay rabto inay aragto 2016 dhamaadkiisii ama 2017 bilowgiisii inay horumar weyn inay wadanka u tahay igu jir qadka sayid cali aad iyo aad mahadsan tahay tafaasiil badan baadna siisay waxaan la hadlayaa markaan xildhibaanada lasoo doortay mid ka mid ah waxaa la yidhaahdaa mudane cabdi fataax caaqil yare qadka stuudiyaheena nairobi ayuu ku jiraa mudane kusoo dhawow barnaamijka sida aan la socdo adigu soomaalida maraykankaad ka mid tahay halkaasaad ka timid dalkaad kusoo noqotay xildhibaan ayaa lagu doortay marka balqaabkaad ku timid nooga waran adigu bismi illahi raxmaan iraxiim waan idin wada salaamayaa doctoorka waan salaamayaa labada doctor sayid cali waan salaamayaa idinku waad ku mahadsantihiin barnaamijkan aad qabateen waxaan rabaa inaan horta xuso intaanan u gelin arrintaadi weydiisay doorashadani wax lagu tilmaami karo doorasho waa markii ugu horreysay 49 sano ka bacdi in ay ka dhacdo Soomaaliya meel ay doorasho ka dhacaysana waxaa xaqiiq ah nooc nabadgelyihi inay ka jirto doorasho ma dhacdeen haddayna nabadgelyo jirin waxaan aaminsanahay ama dad badani ay aaminsan yihiin inay taasi tahay guul u soo hoyatay shacbiga Soomaaliyeed markaan intaa ka gudbo aniga waxaa ila tartamay 7 qof 4 way tanaasuleen 3 baanu isugu soo harnay 51 qof oo ka tirsan deegaanadii kursigaygu uu yaalay dad laga soo xulay oo mujtamaca
isugu jira dhalinyaro odayaal aqoon-yahano hooyooyin isugu jira ayaa doorashadaas ka qayb galay oo ergooyinkii ahaa layn dheer waxaa laiga soo doortay gobolka jubbaland layn dheer ayay galeen iyaga iyo kuwo fara badan oo markaa la dooranayay nabadgelyada meesha markaa ka jirtay gobolkii aniga laiga soo doortay ee jubbaland waxay markhaati u tahay soomaaliya in isbeddel weyni uu ka bilowday markaan intaa ka gudbo in oday intuu i qoro uu yidhaahdo orodoo tag xamar oo baarlamanka nooga qayb gal iyo in 150 qof ay doortaan haddee fiilinka u dhexeeya waad garan karaysaan dareenka u dhexeeya dareenka u dhexeeya waa la garan karaa marka anigu waxaan qabaa in ay tahay wax lagu faani karo soomaaliya inay ku soo noqonayso deganaanshihii iyo maaragtay is-aaminaadii ay is-aaminayeen dad baa yidhaahda qolooyinkan qurbaha ka imaanaya gudaha lagama jecla marka doorashadaas oo kale la gaaray iyo maaragtay ka qaybgalka maamulka iyo dalka marka wax noocaasa marna ma la kulantay maya waxaa weeye gudaha haddaan layga jeclayn dee kama soo baxeen oo layma doorteen marka taasi malaha waa wax uun iska yaa kuturikuteena oyna waxba ka jirin waxaa kaloo iyadana maaragtay horumar ah in markii ugu horreysay in kooto dumara oo tiradoodu intaas dhan tahay inay baarlamanka soo galaan inay tahay taas waa guul kale oo u soo hoyatay shacbiga soomaaliyeed waxaa iyadana maaragtay in la xuso ah deegaanada ya nabadgelyada ka jirta saan horeyba waa kugu soo noqonayaa mudane arrinta nabadgelyada waa ka hadasho waa dhinacaada waa fiican taha la yidhi marka waxaan rabaa inaan qaar idinka maqashiiyo dadka codka noo duubay oo barnaamijkan maanta ka soo qayb galay ee dhegeystayaasha waa maxamed cabdi oo jooga degmada burkile haddii aan ka dhiibto fikirkeyga xildhibaanada lagu dhaarinayo magaalada muqdisho iyo dibidhaca ku yimid doorashada waxa aan filayaa in ay tahay aqli la-aan iyo waxgarad la-aan amadeen xildhibaanadii hore iyo kuwan hadda la dooranayo waxba ma kala duwano waa jugjug halkaaga joog alla waxay soo kordhinayaan kuwani ma jiro kuwii horena dalka burbur iyo rafaad baba iyo dad dhiiggiisa maalin walba la cabayo oo lagu daadinayo ayaa ka jira alla waxay soo kordhinayaan madaxdan hadda jirta waa kurtiga iiga kacan aan kaaga dambeeyo unbay ku jiraan dadka iyo shacabka waxba looma qaban aygu cabdisaha cadaawud oo ku nool magaala madaxda gobolka gardafuur ee baargaal haddaan haydan ummadda soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay rajadeenu ma xuma waayo insha allah waa ka bixi doonaa dhibaatadan waa in mar walba la rajeeyaa sida ay wanaaga ah ay uga soo bixi lahaayeen xildhibaano fiican iyo madax fiican kolleyba aniga fikradeyda waxay la tahay xildhibaanada hadda xilka loo doortay waa inaad mas-uuliyadda ummadda soomaaliyeed si fiican u qaadaan u dhaarataanin waxaan leeyahay bal xasan sheekh maxamuud mar labaad ha lasoo doorto si uu bal kolleyba de waxba uu ka fahmay arrimaha soomaaliya marka intii qof cusub imaan lahaa oo hadda kadib isla wax uu isaguna barnaamij cusub bilaabi lahaa xasan maxamuud baa fahmay xasan sheekh maxamuud ha loo daayo oo u codeeya baan dhihi lahaa markaasaan aaminsanahay fikrad waa yahay kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha codka noo dhaafay welina kuwo kale ayaan haynaa mar dhow aan maqli doonaa laakiin haddaan markaan la hadlo sayid cali waxa weeye waa dhegeysatay ra'yigaas kala duwan dhegeystayaashu ay qabaan marka dadka aan qanacsanayn sidee loo qancin karaa ay kula tahay dabcan dadku way kala fikir duwanaan karaan marka loo fiiriyo qof walbaba sida uu arkayo xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada hadda lasoo doortay waxay ku kala gedisan yihiin laakiin dadkii dabcan oo hawsha ku guda jiray ama processka ama hanaankii waxtooga ayaa in badan xog ogaal u ah oo wax laga weydiin karaa waxaan aragnay tusaalooyinka la sheego waxaa kamid ah
dad xildhibaano ahaa muddo 16 sano baarlamaanka ku jiray oo intaasoo connections iyo network badan lahaa haddii loo fiiriyo dhaqaalana aan ku yarayn inay dhalinyaro yaryar oo hadda wax soo bartay qaarkood weliba cod ha ku soo celi dhalinyarada ku soo celi codku waa naga go'ay raalli ahaw sayid cali waxaa yidhi halo waa kugu soo noqonayaa sayid cali waa kugu soo noqonaya qadkaasu ma fiicna waxaan markaan eegayaa dhinaca facebooka akhyaarta iyaguna codkooda ka soo dhiibtay ra'yiga ay ka qabaan arrintan aan ka hadlayno farxaan maxamed jimcaala noo haya dhegeystayaasha horta markii ugu horreysay axmedow maanta barnaamijkan dooda jimcaha waxay la tahay waxay si toosa uga daawanayaan bogga b b c somali facebook oo dadkii iyagoo maqal iyo muuqaalba ah inta haysata internetka ayay naga daawanayaan marka in fara badan hadda halkan bay fikradahooda ku soo qorayaan hadda oo aan hadlayno toos ayay noola socdaan fikradahooda kala duwan halkan ayay kusoo gudbinayaan aad iyo aad ayayna u mahadsan yihiin adaa ujeedid qaar ka mida qaarna waa soo daabacay oo kuwii hore u soo qoray saacad ka hor waxaa ka mid a dhegeyste ka soo qoray magaalada boorama oo la yidhaahdo sadaam xaaji bashiir wuxuu yidhi anigu waxay la tahay fikradayda in baarlamaanka cusub ee soomaaliya waxba uusan dhaamin amaba ka gedisnaan doonin kuwii hero sababtoo ah buu leeyahay waxa soomaaliya ka socday doorashooyinkan kuwa ka dhacaya federaalka iyo gobollada kala duwan waa riwaayad caadi ah oo laysku dhigayo fikirkaasi ayuu qabaa laakiin fikirkiisa waxaa ka duwan oo qaba dhegeyste la yidhaahdo maxamed axmed oo yidhi oo ka soo qoray isna magaalada gaalkacyo wuxuu leeyahay aniga waxay la tahay in tan ay noqon doonto tii soomaali ay ku bulaali lahayd sababtoo ah baarlamaankan waxaa ku jira buu yidhi dad aad u kala duwan oo aqoon leh iyo weliba dad soomaaliyeed oo xirfado kala duwan leh fikradaha kale dhegeystayaashu qaar ay noo soo qorayaan oo sida tooska hadda waxaa ka mid ah engineer borow oo hadda soo qoray wuxuu leeyahay waxaan joogaa xerada dhagaxley runtii doorashada soomaaliya waxay noqotay buu yidhi hal madhalays ah ama riwaayad aan dhammaan marka aniga waxay la tahay in sababta ay u tahay buu leeyahay musuq maasuqa iyo cadaalad darrida ka jirta soomaaliya taasoo xal loo helina wuxuu leeyahay wax kala soconaya malaha aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waa ra'yi kala duwan ayaa halkaas ka muuqda waa tahay markan waxaa saacaddu ay ku sii dhowdahay 5:00 iyo barkii afrikada bari dooda ayaad la socotaan jimcaha oo maanta ku saabsan baarlamanka cusub ee soomaaliya oo hadda dhammaystirkiisii uu dhow yahay oo inkastoo ay had shalay in la dhaariyo oo dib u dhaca uu ku yimid haddana hawlihiisu gabagaba ayay ku dhow yihiin marka ma noqon doonaa mid hawshiisa si wanaagsan uga soo baxa isla markaana kalsoonida dadweynaha hela arrimahaas dadka falaqaynaya waxaa ka mid ah doctor afyare cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda dalka qatar waxaan kaloo filaynaa doctor maxamed cabdi oo jaamacadda magaaladan london ee metropolitan ka tirsan inuu isna mar dhow nagu soo biiro waxaa kaloo barnaamijka ka qayb gelaya sayid cali abukar oo guddoomiye ku-xigeen ka ah guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xildhibaan cabdifataax caaqil yare oo isaguna ka mid ah mudanayaasha baarlamanka soo galay cusub ayaa isaguna stuudiyaheena nairobi ku sugan halkaas aad nagala socotaan waa b b c london qodobada wararka caalamka ugu waaweynna waxaa ka mid ah arrinta dalka suuriya gaar ahaan magaalada xalab oo howlgalkii dadka lagu daadgureynayay uu hakad galay halkaas aad nagala socotaan waa b b c london waa hagaag dooda ayaa halkeeda nooga soconaysa waxaan ku bilaabayaa markaan dhinaca telefoonada dhegeystayaashu ay kaga qaybgelayaan faa'isa sheekh cabdiraxmaan qadka telefoonka ayay ku jirtaa faa'isa xaggee joogtaa marka hore waa mahadsan tahay markii hore baada b b c da idin salaamaya waxaan joogaa magaalada muqdisho ee soomaaliya haye ra'yigaadu muxuu yahay barnaamijkan horta arrintan doorashada waa arrin horta fiican laakiin waktiga doorashada dib loo dhigay
waxaan madaxda ka codsanayaa in horta wixii ilaahay horta ay ka cadsadaan shacabkan waa shacab daalan meel walba ay joogaan waxay u baahan yihiin nabad marka wax in la dedejiyo ayaan u baahnayn waayahay sida kale in doorashada qaabka ay u socoto iyo maaragtay muranada laga sheegayo iyo maxay kula tahay muranadaas way jiraan laakiin waxaa jira dad oo qaswadayaal laakiin dadkaas waxaan ka codsanayaa inay ilaahay ka cadsadaan ee noo fududeeyaan doorashada waayahay aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan markaan la hadlayaa sayid cali sayid cali abuukar maxaa ay u dhammaan la'dahay intaasaa lays haystaa layska daba qaylinayaa hawshan maxaa loo soo gebagabayn la'aya maalinba maalin loogu amaahanaya waayahay qadka ayaa ka go'ay waxaan u gudbayaa marka su'aal kale oo ah baarlamankani sidee buu u gudan karaa howlihiisa marka uu bilaabo rasmi ahaan la dhaariyo waxaan ku noqonayaa doctor afyare cilmi qadar doctore ma kula tahay in hay-ad sharci dejineed oo maaragtay hawsheeda si hufan uga soo baxda ay ka dhalan doonto doorashadan dadban hore waxaan rabay arrin hal qodob oo si kooban inaan uga noqdo tii hore oo ah waxa markii laga rabo xaqiya sharciya oo dadkii waxaan legitimacyga la yidhaha marka laga rabo waxna processka ama wadada la marayo ayay ku noqdaan waxna markii waxaan la sameeyo wadadu haba iska xumaatee markii la abuuro kadib ayay ficilkooda iyo shaqadooda ayay legitimacy ku kasbadaan oo ay dadkii uga kasbadaan oo habkay u dhaqmaan iyo habkay wax u maamulaan ayagoo aan waddo saxa ku imaan qof laga yaabay hadda oo dictator ahaa oo hagaajiyaa la arkay taariikhda oo waddo ansaxayn markii hore ku yimi laakiin markii dambe xukunkii iska wareejiyey oo hab dimuqraadiya u wareejiyey Jerry Rawlinski Ghana ah ka mid ahaa marka yacni in horta nimankan walaalaheeyo hadda dooda igula jira waa ixtiraamaya dabcan laakiin waxaa aniga ila qumanayd inay hadda doodooda u badato war halkaanay nala dhaafi weysay sidii loo jabaalo balaan hadda wax ka soo baxan laakiin in la yiraahdo doorasho oo sagaalkii si kalaba iska ahaadee lala simo oo shacabku wax doortay waxoogaa waxaan isleeyahay shacabka waxaan la yidhaha waxa waaye maaragtay in aflagaado loogu sii daro maaragtay dhaawaca shacabka waa la boobay shacabka Soomaaliyeed 51 qofna wakiil kama noqon karto 14 kunna wakiil kama noqon karto oday kaba qabiil wakiil kama noqon karo xaqii muwaadinku meesha ma yaalo almost shacabkii oo dhan ayaa processka banaanka ka taagan oo aan wax shaqaa ku lahayn laakiin mar haddii shacabkii oo banaanka ka taagan yahay waa doorasho in la yidhaha ereyga doorasho luqadu macnay samaysaa waayahay doctore laakiin haddaan kaa dhex galo raalli ahaw haddaan ereygaadii hadda u soo noqdo ahaa sidii loo jabaa loo dhutiyaa miyaanay tan qudheedu ahayn sidii loo jabay in loo dhutiyo maadaamaan hal qof iyo hal cod la heli karin dalkana nabadgelyadiisa aan arkayno oo hadda maalin kastoo doorashadu dib u sii dhacdaba rabshadaha iyo qaraxyada iyo waxa dhacaya ay sii kordhayaan sidii wixii kale la heli karay intaas un bay noqotay soo maaha arrinkaasi waa gar waana gar dadka qabata waana inaan yani ayaga laftirkooduna saa ay dhahaan ay yidhaahdaan war halkanay nala dhaafi weysay laakiin waxa aan jirin beena waa doorasho iyo in la yidhaha aniga waxaan isleeyahay xoogaa waa laga quman yahay anigu waa ku aqbali karaa waa qaadan karaa ninkii soo baxay xildhibaan ku noqdeen inuu xildhibaan dalka ka noqdo ummaduna hore u socoto oo la yidhaha meeshaan horey ha looga socdo halkaanay hadda maanta joogtaa wixii kale maa laa yutraku kulluh laa yutraku julluh ay dhihi jireen culummadu war waxaan lagama wadatay kara halkaan ha laga wado haddii la leeyahay waa gar waaye waa gar dadka qabata laakiin in horta doorasho iyo waxaas lagula meermeeraysta aniga sax ila ma aha waxaani sidaasay u dhaceen musuqmaasuq
musuqaasaad ujeedo horteena ka dhacay boobkaasaa ka dhacay dhowrkaa ninaa manipulate garaysay oo waxay rabta ka soo saartay sidaasay haddana dalka institution qof raba iyo qof aan rabinba dalka institutionka baarlamaanka ee hadda la sameeyey wuu u noqonayaa annaga marka waxaan dhihi karnaa waxa ugu fiican oo samayn karna waxa waaye war baarlamaankan cusub ee yimaada cala al aqali dhaqankiisa iyo shaqadiisa ha ku kasbado wixii uu ku waayey processkii uu ku yimid ha ku kasbado waayahay waxaa tiri wax dictatoriyad ka bilowda oo meel fiican ku dhammaadana waa la arkay marka baarlamaankan doodaada haddaan kuu raaco si aan sax wada ahaynba ha ku yimaado laakiin waxaa la sheegay in dad badan oo mutacalimiin ay ku jiraan haween ay ku jiraan maaragtay waa baarlamaan maaragtay nooc walba laga helayo marka rajo fiican soo marka lagama muujin karo in ay noqon doonaan hay-ad shaqadeeda si saxa u qabsata oo maaragtay dhibaatada dalka haysata iyo dagaalka la degay ka bixisa rajada horta waa shay islaamiya oo haddii rajada laga quusto dhib badanaa imaanaya annagu mar walba inaan rajo lahaano oo aan yacni aanaan ka quusan raxmadda ilaahay iyo shacabka dadnimadiisa iyo taasi horta waa arrin aan dooda marna geli karin waxa muhiimka waxaa waaye anigu baarlamaankan hadda aan arko waxaan ka rajaynayaa baarlamaanka iyo hay-adaha kaloo ka dhashaba in wixii yimaaday oo 20 sano lasoo dhaafay khibraddii ahayd wax laga qabsado hay-adda sharci dejintu hay-ad aad yacni hore ugu socotay ma ahayn marka runta laga hadlo mar walba waxay midiidin u ahayd oo ku cayaari jiray oo isu isticmaali jiray prime minister iyo madaxweyne diriirsan sharciyada ay soo saartay hadda 4 sano oo lasoo dhaafay ugu roonaayeen waa haddii sharciyada ah maaha mooshinno iyo wax meelaha lala tagtay iyo dhowr shay maaha waxaan 10 sharci ka badnayn waaye hadday cirka galaan waa baarlamaan 4 sano jira kuwii ka horreeyeen iska badaaba marka hay-addu inay shaqayso oo ay sidii hore dhaanto oo khibraddii laga faa'iidaysto rajaan ka qabaa ka shakhsi ahaan dabcan oo hadda laftirkeeda kuwii hore badankoodii aa soo noqday ilaa hadda 50% roughly 55% ka badan aa laga yaabaa inay kuwii hore yihiin marka waxaan isleeyahay rajo mar walba anuu rajo waan ka qabaa mar walbana dadka soomaalida ah waxaa jirta horumar dhinaca dadweynaha ah oo societal base oo hore u socda oo ka horeeya xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka horeeya oo ka horeeya maaragtay political classka soomaalida ka horeeya oo runtii aad u fiican oo in la dhiirigeliyo u baahan marka waxaan rajaynayaa inay la qabsadaan oo ay wanaajiyaan oo wixii processka ku halaabay iyo manipulation iyo xilasho iyo boobka ahaa ay ku bedelaan shaqo wanaagsan inay qabtaan meesha yimaadaan aad u mahadsantahay ilmaano anagu processkii aan iska dayno markaasoo aan idhaahno war heer soo doonaba ha ku yimaadee qoladani institutionkani wuu shaqaynayaa sharciyo wanaagsan buu dejinayaayo maaragtay xukuumaddii buu la xisaabtamayaa 4 function ee lagu yaqiinay baarlamaan u lahaa ayuu qabsanayaa saasaa aniga ila quman hadda in doodeennu ay u badato waa mahadsan tahay waxaan marka la hadlayaa xildhibaanka cusub cabdifataax caaqil yare cabdifataax kuwii hore waa arkaysaa dhaliil badanaa loo soo jeedinaya baarlamaankiinan cusub muxuu kaga duwanaan karaa bay kula tahay waxaa weeye anoo aad u ixtiraamaya doctor afyare waxaad moodaa inaanan aan ka wada hadlaynin laba wadan oo inaan ka wada hadlaynin hal wadan oo soomaaliya la yidhaahdo waxaad moodaa waddan gaara inuu ka hadlayo anigu waxaan ka hadlayaa soomaaliya waddan 30 sano dagaal sokeeye ragaadiyey oo dadkoodii uu isdilay oo burburay oo wax u dhaqani uuna jirin processkan uu leeyahay legitimate weeye ama legitimate maaha waa process loo dejiyey oo UN to involve ay ahayd oo hay-ado kaloo caalamiyihii ay involve ahaayeen maadaama processkan sidaa lagu dejiyey gobolladii maxay ahaytoy dowlad goboleedadii madaxdoodiina ay ku heshiiyeen oo waxa la haystay uu ahaa processkan la dejiyey in la raaco aniga waxa igu muuqataa inay legitimate ay tahay wax ka horreeyey oo u eg doorashana ma jirin yaa hadda ka hor
marka waxaan qabaa fikirkaygii hore ee ahaa waa bilow fiican oo u soo hoyday shacbiga soomaaliyeed. haddii aan markaa u gudbo wuxuu kaga duwan yahay xildhibaanadii hore. aniga gobolka la iga soo doortay 43 xildhibaan baa ka soo baxay, 19 waa kuwii hore, 24 waa kuwo cusub oo hadda la soo doortay. 24 boqolkiiba 90 waa dad dhalinyaro ah oo ka yar 40 sano, 38 sano, 35 sano, qaarkoodna ayba xataa ka yar yihiin 30 sano oo iskuulla ka baxay. halkaa waxaa iga muuqata rajo fiican oo shacbiga soomaaliyeed u soo hoyatay. inkastoonan xogogaal ka ahayn gobollada kale, waxaan rajaynayaa wax ka duwan baarlamankii hore inay ka soo baxaan. marka rajo la'aanta uu walaalkay doctor Afyare uu muujinayo aniga iima muuqato. waxaa ii muuqda bilow fiican oo Soomaaliya ay cagta saartay. waxaa ii muuqda dad is urursanaya oo xildhibaanada anugu aan ka tirsanahay maxay ahayd tooy ka mid ah oo aan qabiil isku urursanayn, oo doonaya inay noqdaan kudlad baarlamanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya intay ka qayb galaan ay isku cod ya noqdaan. dadkaasina waa dad aqoon leh, ma aha waxa hadda maaragtay dad ay maaragtay hadda barnaamijku dadka qaba marka aan ka dhaxlo dadka dhahayo matalan qabiil haddii laga gudbo xataa haddana maamul goboleedyada qudhooda dhibaato kale imaanayo maaragtay isqabqabsi kale iyo maaragtay iska hor imaad kale uu ka dhex dhacaya. maxaad ka leedahay iyaga? well 270 yaa xildhibaan iyo 5 ayaa tegi doona faloorka baarlamanka ee Soomaaliya, oo dad badan oo cusub oo aqoon lihii ay ku soo kordheen, iyo dadkii hore oo baarlamanka ku jiray oo dad fara badan oo aqoon lihii ay ku jiraan oo wadaniyiin ah. waxaan qabaa inuu ka duwanaan doono baarlamanadii hore. kii hore ee 2012 inuu ka duwanaan doono. wixii ka horeeyena waxay noo jirayba ma jiraan. waa mahadsan tahay. marka walaalkay waxaan anoo aad u ixtiraamaya, waxaad moodaa laba wadan oo kala duwan inaanu ka hadlayno. waayahay waa tahay waa kugu soo noqonayaa mudane iisug. markan waxaan mar kale la hadlayaa dhegeystayaasha fikradahooda noo duubay. aan dhegeysano bal hadda iyagana. shaqaalaha b b c baan salaamaya. magacaygu horeyntii waa Salmaan Maxamed Jaamac oo garowe Puntland Soomaaliya idin soo wacaya. maxaa laga filan karaa xildhibaanadan cusub? waxaa laga filan karaa xildhibaan kusoo baxay 3 arrimood, ama xeelad kusoo baxay, ama howlo kusoo baxay, ama kusoo baxay doorasho dadban. sida la socotaan musuqmaasuq badan ayaa hareeyay dhammaan doorashooyinka gobolada kala duwan ka socday ama maamul goboleedyada kala duwan ka socday, kuwaas oo lagu bixinayay maal iyo hanti badan ama xeelad badan lagu soo baxayay. guddiga dabagalka waxay soo saareen 12 xubnood oo ilaaleen oo ay ka ilaaleen dhammaan maamul goboleedyada kala duwanaa ee laga soo doortay. marka de waxaa laga filan karaa waxa weeye waa xildhibaan 3 wax kusoo baxay. marka dee xoolihiisii buu raadsanayaa isaguyo wixii meesha ka galay waa xildhibaan soo saaranaya. intaasna fakarkayga qabaa. waad salaamantihiin howlwadeenada b b c da, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka jimcaha iyo martishaafka ka qaybgalaysa barnaamijka jimcaha ee dowladda galabta. haddii aan ka hadlo fakarkayga ku aadan doorashada tan mararka badan dib u dhacday, run ahaantii waxaa sabab u ah hogaamiyaasha Soomaalida oo dantoodii ka horumariyay dantii qaran. run ahaantii intaas sidaa xaaladdu tahayna oo danta qaran, danta shaksi ahaaneed, danta qaran laga horumarinaya ma qabo in hagaagaya. waxaana laga filan karaa dib u dhac mar kale ku yimaada doorashada. haddii aan laga tanaasulina waxaa dhici doonta dowlad musuqmaasuq iyo cadaalad darro ku dhisan, wadankana u horseeda qas iyo foodo iyo inuu lugaha la galo kii 91 oo kale. haddaba si looga baaqsado arrimahaas waa in lagu dadaalaa
dawlad cadaalad ku dhisan danta guudna la hormaraya halkii danta shaksiyan la eegi lahaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsantiin b b c. magacaygu waa cabdiraxmaan oo jooga gobolka Sanaag. fariinta aan maanta rabay halkan ka jeeday waxa weeye doorashada dawladda Soomaaliya si wanaagsan ayaan u aragnay inay u socoto. waxaanu ku sii dhiirigelin lahayn inay sidaas iyo si kasii wanaagsan ay u sii socoto iyadoo dalku uu marxalad culus ku jiro sida abaaraha iyo xoolihii oo laga soo jeedo Sacuudiga. sidaa darteed waxaan dawladda aad ugu baaqi lahaa iyo dadka Soomaalida wax garanaya inay doorashada si dhaqso oo wanaagsan ay u maamulaan ayna dawladdu si wanaagsan durba ay u dhalato. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waa tahay dhegeystayaasha ra'yigooda waa aragnay. haddaba su-aashayda xigtaa waxay tahay waxaa xogeeyaha wakiilka aan iraahday u qaabilsan qaramada midoobay Soomaaliya Michael Keaton isaguna maanta uu soo qaaday arrin ka mid ah waxyaabaha hadda ay dhegeystayaashu ka hadlayeen oo ah kuraasta la baabi'iyey. marka horta waxaan idin weydiiyey baabi'inta kuraastaas 11 kursi ayay ahaayeen baan filayaa. yaa xaq u leh? ma guddiga doorashada ma maxkamad see ku imaan kartaa? aan ku horeeyo Dr. Afyare. sida hadda formalada guud ay ku heshiiyeen horta guddiyadan oo dhan waxaa sameeyey madal oo la yidhi madashaana go-aanka ugu dambaysa iska leh. anigu marka waxaan aaminsanahay wax walba oo wixiina hadda intooda badan waa wax siyaasadaysan oo ma aha legal issue, ma aha maxkamad lala aado ama committee wax lala aadayo. hadda waxay u dhammaanaysaa si madashii inta loo celiyo ay si xal mastuur ah ay waxan uga go-aanan. aakhirka madashani waxay more or less waxay u dhigantaa hogaamiye kooxeedyadii mar ku doodi jiray arrimahan ee wax keensan jiray iida iyo kuudaadi wax noocaas oo kale ah. marka madashaas ayaa go-aanka u dambeeya iska leh. waayo markaad fiiriso guddiyadan madashaasaa samaysatay madashaana overrule garayn karta markay rabtana ayadaa burin karta ayadaa burin karta, horey u dhigi karta, gadaal u dhigi karta. nuxurku halkaas uu hadda iskugu tegayaa. waxaan isleeyahay marka madashan hadda soo socota markay iskugu yimaadaan nimankii sameeyey guddiyadan in guddiyadii wixii ay keeneen ay intay ka doodoodaan ay aakhirka meel isugu geyn doonaan. caqliga caadiga wuxuu keenayaa haddii guddi haddii la rabo in la qabto nidaam dalka uu leeyahay waxay ahayd dawladdaas dhexe inay guddi samayso. guddigaasina hadduu guddi doorasho ama guddi wixii lagu magacaababa uu asagu habkiisii go-aan samaynta oo dhan inta loo madax banneeyo go-aankuu sameeyana oo kama dambays noqdo oon layskaga daba imaanin. hadda xaaladeenu meesha ma joogto. nidaam sharciga oo wanaagsan oo shaqeeyana meesha ma yaalo. waa iska xal mastuurkaas inay noogu socday u badan tahay. waa guddigii bedelay baarlamaanka. waxaan ka hadlaa madashu waa madashii bedeshay baarlamaanka iyadaa go-aanka kama dambaysta ah iska leh. anigu intaasaan isleeyahay. waa mahadsan tahay. waxaan la hadlayaa sayid cali abuukar. sayid cali, baabi'inta kuraastan iyo waxa laga yeelayo yaa leh xaggee ku qoran tahay cidda iskale awooddaas? hallo sayid cali. waayahay sayid cali qadkiisa waa go-ay. waxaan ku noqonayaa xildhibaan cabdifataax oo stuudiyaheena nairobi jooga. xildhibaan, sida ay ku timid iyo cidda ay tahay inay baabi'iyaan meeshii dhibaata ka timaad iyo ma kala caddahay nidaamku ma sheegaya? su-aashaas waxaa aada iiga habboonaan lahaa sayid iyo cali. waa maqlaysa, waa isku dayey laakiin waa qadkiisaa go-ay. laakiin haddii kolley sharci yaqaan ma yihi oo nin loo yaro ma yihi, laakiin aniga waxay ila tahay laba siyaabood in loo xalliyi karayo. midi waa in lagu celiyo deegaanadii kuraastaasi ay lahayd oo ama guddigii khilaafaadka federaalku uu xalal ka gaadho isagoo la tashanaya dowlad goboleedyada ayaa kuraastaasi ay taallo. arrinta kale ee laga gaadhi karo waxaa weeye ma aha in la xalliyo berito ama saa dambe ama bil hadda
dib baa loo dhigi karaa 11 kursi oo waxaa lala sugi karaa markii hay-adihii shuruucdu ay dhismaan ayaa maxkamad lagu qaadi karaa labada arrimoodba waa la samayn karayaa baan qabaa waayo waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku daro hadda gobolka Jubbaland hal baa laga soo celiyey hal xildhibaan ayaa laga soo celiyey marka uma xayiraan karo dee baarlamankiioo idili wax 10 gaar ama taas waa la sheegay haddii tiraf ku filan maaragtay ay soo dhammaato hawsha waa soconaysaa saas waa u ognahay waa mahadsan tahay markaan dhegeystayaashan fursad kala siinayaa xaashi qadka telefoonka ayuu ku jiraa Hargeysa ayuu joogaa xaashi ra'yigaadu muxuu yahay wallahi ra'yigu horta waxa weeye riyaanba waa dhegeysanayay xulashadan ka socota koonfur Soomaaliya dalkii loo odhan jiray ay kala xulanayaan maamul goboleedyadu dadka soo xulayaan aqal sare aqal hoose macna weyn saas asigan simsana waxaan hal taluma siin lahaayo horta waxa ka muuqata marka hore soo xulashada dadka la soo xulaya inay moodayaan in wax la kala boobayo waxaan oran lahaa waxa loo soo xulaya ama kor laga keenay ama hoos laga keenay qaran dumay oo baabaay oo dhiig baxay iyo ummad rogmatay inay madax u noqdaan haddii aanan khaldanaysa soo fahmaya waxay ahaan lahayd runta markay tahay dadku inay ka baqaan xilka noocaasa in la daydayo ciddii qaban lahayd in loo soo kala dheereeyo la isku qabsadaa waxay muujinaysaa xilgarasho la'aan waa koow mar labaad maamul goboleedyada sheegay markaan hoos ugu soo noqdo waxaan oran lahaa warba haddaaba aqal dhexe isugu imanaysaan kuu doonaha ahaadee maamul goboleed marka kaa lagaa soo xulee lagaa keena kii dhexaatii kaa dhexeeya sidaa mar uu meel wuxuu wax dhigi lahaydeen ifii aakhire adduuniya Soomaali ku daaliye bal mar uun garashadu lugihiina iyo maskaxdiina ha timaado waxaan oo lahaa gobollada qaarkood tiradan la isku haysta hiiraan iyo meel kalean maqlayay Somaliland oo gooniba u go'day baa tirada la barayaa la daba socdaa nimanka xamar iska jooga Somaliland ay metelin halkaana metelin tiradooda hal la siiyo gobollada baahida u qaba waayo waa mahadsantahay waa fahmay ra'yigaadi waa fahmay waa mahadsantahay xaashi markaan su-aal si degdega ayaan rabaa inaan min hal daqiiqo inaa uga jawaabtaan aan ku horeeyo doctor Afyare Soomaaliya waqtigan la joogo baarlaman 2 aqal ah ma u baahan tahay hal daqiiqo maya uma baahna mana ka bixi karto waxaana iman doonta waxaana aan rabaa inaan ku raaciyo xilligan hadda la joogo ma kala cadda doorarkoodu labadooduba hadda aqalka sare 54 qof 54 beelood waaye haba la siiyo maamulka ninka madaxweynaha ka ah qofku rabo inuu ka soo qaato waa mid 275 qabaa'il ay matalayaan marka ma loo baahna dhinaca matalaadda marka laga fiiriyana ma loo baahna 2 aqal dhinaca shaqada marka laga fiiriyana isku shaqay qabanayaan oo madaxweyne dooranayaan oo sharciga wada dejinayaan oo waxaas baa ku qoran marka aqal ka labaad wax shaqo uuna kii hore qaban karinna ma la siinayo hadda oo ma muuqato representation ama matalaad uusa kii hore bixin karinna ma la siinayo marka laga reebo ninka gobolka jooga in wax la siiyey oo de asagu uu 2 ama 3 qof oo asagu oo midkii usoo baxaba uu kiisi yahay oo meesha keensanaya marka laga reebo xaqiiqatan marka 2 aqal oo haddana aan doorkoodu kala caddayn inay isku dhacdhacaan oo ay aad u daahiyaan delay badan uu ku yimaado xeer dejinta ayaa iman doona waa mahadsantahay qabsiya iman doona runtii waa dhib hadda u soo kordhan qabaa mana laga fakerin horaantii mar kale aan kugu soo noqonayaa iisug gabagaba ayuu joogaa barnaamijku xildhibaan caaqil yare 2 aqal ma u baahan yahay baarlamanka Soomaaliya hadda anigu waxaan qabaa inuu u baahan yahay waana sababaynaya hal daqiiqo haddii hadda ya aan la dooranin goorma la dooranaya waa in hadda la doorto waa inay ku barbartaan waa in khaladaadkoodu bato waa in la qoro khaladaadkaas si mustaqbalka looga faa'iidaysto oo looga wareego laakiin waxa gadaal laga bilaabaa kow unbuu ku yahay marka intuu kow ku ahaan lahaa 20 sano ka bacdi ama 10 sano ka bacdi hadda inuu kow inoo noqdo oo inu baranno oo inu research ku samayno
oo dadku ay maaragtay bartaan oo dowladdu barato anigu waxaan qabaa inay faa'iido ku jirto oo ina khasaare ku jirin aad iyo aad u mahadsan tahay gabagabadii barnaamijkan joognaa waxaan ku noqonayaa professor afyare doorka beesha caalamku arrintan ku leedahay muxuu yahay haddii ay noqon lahayd shaqada baarlamanka sida uu u qabanayo iyo maaragtay aqoonsigiisa jiritaankiisa qaabka lagu soo doortay beesha caalamku maxay ku leedahay arrintan kuleedahay dowladnimada soomaaliyada la sheegayo hadda ka jirto dhanna ayaday ku salaysan tahay iyadaa waardiyeysa iyadaa dhaqaalo siisa iyadaa sharciyada siisa iyadaa u dejisay oo tiri waa in haddaan la dhihi lahayn waa inaad hadda dispensationkan samaysaan oo arrinta nidaamkan la sameeyo qolada meesha joogtaa maba samayn lahayn wuu iska daydi lahayd maalin walba deadlinekan ama go-aan meeshan loo qabanayo iyadaa u qabata waqtiga kama dambaysta dumarka meesha ka soo baxayna iyadaa ka soo saartay haddaan kiitinkan iyo orodkan iyo gabgabtaan ahayn qoladani way ku tuman lahaayeen marka beesha caalamku awood aad u weyn ku leedahay dowladnimada soomaalida marar badan laakiin si saxa uma isticmaasho waayahay maxaa sax noqon lahaa bay kula tahay mararka qaar nimankan siyaasiyiinta inay culays saarto waa la manipulate ayada laftirkeeda marmarka qaar sidii la rabo loo jeediyaa la qashqashaadaa waxa aan sax ahayn lagu isticmaalaa waxaa dhacaysa hadda nidaamkan markii la yidhaha samey waxay abuurayaan siyaasiyiintu xaalad la yidhaahdo waxay rabaan ha keenaan naga daaya ilaasay wax isaga daba wareejinayaan markaasoo kale waxay ahayd inay firm position istaagaan laakiin xaqiiqada markaad rabto meel adag inay istaagaan dowladda soomaalidu maanta waxay ku jirtaa waxaan la leeyahay bulsho caalam waa mahadsantaha waayo shacabkii soomaaliyeed ma hayso oo kalsooni kama hayso mana weydiiso talo marka waa xaqiiqa sharciyada international community unbayba ku jirtaaba waa mahadsan tahay doctor waxaan la hadlayaa xildhibaanka baarlamaanka goormaa la dhaalinaya maalin walba dib ay u dhacaysaa 30 second ilaa iyo isniinta yaa in dhaartiisu ay dhammaataa la filaya waa tahay marka taasi ma sii ridi kartaa 28 loo ballansanaa in madaxweyne la doorto dib ma u dhigi kartaa way dhici kartaa aad iyo aad u mahadsan tahay intaas ayaan barnaamijka waqti u helnay waxaa ka qayb galay doctor afyare cilmi jaamacad qatar ku taalla wax ka dhiga sayid cali abuukar oo gudoomiye ku-xigeenka ah doorashada gobolka koonfur galbeed soomaaliya iyo xildhibaan caaqil yare tan iyo kulanti dambe nabadgelyo